kusoo dhawaaw janalka taab ee arrimaha ganacsiga iyo tiknoolajiyadda sida loo yareeyo cabirka muuqaal kasta iyadoon tayadiisa lumin. barnaamijka waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu fudud uguna wanaagsan ee lagu yareeyo muuqaal cabirkiisu weyn yahay. haddaba sababaha loo yareeyo muuqaal cabirkiisu weyn yahay waxaa ka mid ah waxay si dhaqsi ah ku buuxi karaan qaybta kaydka kombiyuutarkaaga. oo dirida dadka aad la shaqeyso muuqaal cabirkiisu weyn yahay waxay kugu qaadan doontaa waqti aad u badan. sidoo kale ayakana dejinta muuqaalka waxay ku qaadan doontaa waqti kale oo aad u badan. sidaa daraaddeed waxaa yareyn karta muuqaalka cabirkiisa si ay u sahlanaato dejinta iyo dirida muuqaalka iyadoo wax loo dhimin tayada muuqaalka gebi ahaanba. ka degso setup-ka barnaamijka qaybta description-ka ama faallada sina daawo muuqaalka oo dhammaystiran. fadlan haddaad channelka ku cusub tahay subscribe dheh oo gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee muuqaaladeena cusub daawada. asxaabtaadana la wadaag fikirkaaga noogu reeb qaybta hoose. taab kala dasho wax walba oo aad tabanayso ee dhanka ganacsiga iyo tiknoolajiyada ah. qaybta wax lagu qoray ee browser-ka email handbrake ku qor kadibna linkigaas hoose dooro ama waxaa samayn doontaa inaad linkiga uga soo dhufato qaybta faallada ee hoose ee muuqaalka. labadaba waa samayn doontaa. kan aan ku dhufano oo kan markaan ku dhufano wuxuu noo soo qaaday halkan. haddaa linkiga kusoo dhufatana waa la mid halkan ayaad imaan doontaa labadaba. oo halkan markaad timaadid waa handbrake waa barnaamijka aan rabnaa isticmaalna waa muuqaal yareeye bilaash ah. waa kana qaybtan hoose waa calaamadda download halkan ayaa ku dhufanaysa haddaa rabta inaad degsato. kombiyuutarada qaybahooda kala duwanna wuu ku shubmi karaa. windowska aan dhaho windows mac ama linux intaba waa lagu shubi karaa. oo markaa ku dhufato qaybtaas hoose ayuu ku dega doonaa oo hadda falaarta ay ka muuqato. kadibna wuxuu aadi doonaa qaybta kombiyuutarka oo downloadka ayaa la aadi doonaa file explorer soo kici downloadka kombiyuutarkaaga tag oo waxaa ugu tegi doontaa barnaamijkii oo kuu degtay oo calaamadda handbrake waa barnaamijkaas. halkan waa halka kombiyuutarka wax kastoo la soo dejiyo ay soo galaan browser laga soo dejiyo. asiga double click ku sii oo double click markaan ku siin halkan ayuu keeni doonaa next dheh waa barnaamij iska fudud ku shubitaankiisana aad u fudud yahay. marka ugu dambeysana finish iska dheh oo marka kombiyuutarka ugu shumo waxaad samayn kartaa inaad desktop-kaaga hadduu saaran yahay shortcut inaad ku dhufatid. haddaa weysidna start button-kaaga tag oo start button-ka ku dhufo oo start button-ka markaa ku dhufato halkan kore ayuu kaaga soo muuqanaa. hadduu kuu soo muuqa waayana xagga serjiga ku qor ama baaritaanka handbrake markaa qortona uu kuu soo muuqdo waa kaasa handbrake double click ku sii oo markaa ku dhufatay wuu noo soo kacay programka waa kana qaybihiisa kala duwanaay waa weynay. wuxuu ka samaysan yahay labadan qaybo ugu horeysa waa qaybaha wax laga soo geliyo haddaa rabta folders wata qaybtaana haddaa rabta hal file oo video inaad soo gelisid yarey. oo waxaa rabnaa qaabka wax loo soo geli kara inaan aragno in wax lagu soo jiidi karo file explorer-ka tag folder meel ka mid yaala tag programka soo kici oo yarey meel ka mid ah shaashada saar isbarbar dhig. kadibna waxaa samayn kartaa inaad ku jiidid ama inaad adeegsatid failalkaagii folderka ama file inaan kusoo furno. markaa kusoo jiida halkaan ayuu muuqaalkii kasoo muuqa doonaa. laakiin anaga hadda waxaan samayn doonaa inaan file dhahno oo file ku dhufo oo file markaa ku dhufato folder meel ka mid yaala kombiyuutarkaaga tag folder meel ka mid yaala desktop-ka tag. kadibna waxaan ka tegi doonaa folder isla folderka hadda aan tegaynay oo kale waa kana folderka muuqaal aan imaanay. muuqaalkan waxaan fiirinaynaa cabirkiisa intuu la egyahay cabir ahaan si aan u yarayno. cabirkiisa ujeedadu waa 423 MB. marka in la yareeyo la rabaa oo laga dhigo cabir yar isla markaasna WhatsApp ama Gmail si fudud loogu diri karo. iska xir oo isagoo kuu dooran open dheh oo open markaa dhada sidaan kuugu furma. haddaa kusoo jiidi lahaydna sidaan kuugu furmi lahay labadaba waa samayn lahayd oo saa markuu kuugu furmo. qaybtan waa qaybihii uu ka koobnaay programka. qaybtan ugu horeysa bidixdaan fiirinaynaa. qaybtan gantaan markaa furto MB4 kaas dooro kuwa kale waa dooran kartaa. web based kana jack saar
haddaad rabtid inaad website iyo YouTube iyo inaad ka kicisid muuqaalkaaga dimensionka aan daafurno dimensionka sidiisa ku dhaaf waxba ha ka bedelin cabiradan kala duwan oo leeyahay waxba ha ka bedelin sidiisa ku dhaaf filterkan fur sigana sidiisa ayaa lagu dhaafi doonaa sida defaultiga looga tagaa videogan sii fur videogan waa qaybta ugu muhiimsan la rabay wax laga sameeyo qaybta ugu horeysa sidaas ku dhaafaysa oo H264 ka ku qoran tahay frame rate kan meeshiisa fur meeshan ayaa rabnaa laba option laba ikhtiyaar ayaa meeshan ku furan ina 23.9 aad dooratid ina tiraahdo same as source midan ayaana fiican same as source ina dooratid laana meel kasta la goola shaqeynaa kadibna constant frame rate kaas check saar dhaxdan soo aad oo dhaxdan ayaa ugu muhiimsan qaybaha arbina sharaxno low quality meesha ku qoran tahay iyo qaybtaas quality ah maxna midna waa quality wax yar in la dhimo midna quality zaid waaye oo sida muuqaalka lagu sameeyay falaartan dhaxda calaamadaas hadba dhinac loo jiido ayaa rabaa in wax loo dhinaca u jiidna hadda waxa dhacaya in cabirka uu batay kulama cabirka uu bato meeshan micnihiidu waxa waaye waxa yaraan doona size-ka ayaa yaraan doona kulama dhinacaas quality-ga la aadana size-ka ayaa weynaanaya oo waxa laga dhigi doonaa inuu size-ka noqdo cabirka laakiin uu isdhima dhinacaas daadid ujeeda cabirka kulama meesha agiisa size-ka kulama uu weyn yahay waa cabirkan uu dhinaca soo aadina kulama size-ka ayaa waa weynaysay laakiin wuxuu u dhigmaa in la yareynayo cabir ahaan hadda fiiris 40 iyo maraya laakiin kulama weynu waa yareyna laga wadaaba oo calaamada ku qoran lower quality-ga dhaxdana imaanayna marka waxaan raadinaynaa saddex shay oo tijaabiya jirto oo sawirka muuqaalku soo baxayo tayahan uu soo baxayo midna waa 23 frame rate frame-kiina ka dhigtid 23 hadda 23 aan ka dhigno soo jiid falaartaas calaamadaas soconaysa jiid weli 23 markaa tagtid waa midka ugu fiican cabir ahaan oo in la isticmaalo mid kalena waa arkaynaa waa 18 kan ayuu ka sii weyn cabirka markaas quality-giisa xogaa uu weynaanaa oo waxaan rabnaa inaan markaas ka dhigno cabir 18 oo kale cabirada ugu fiican uu ka mid yahay haddaad muuqaalkiina aad u yaraynin waaye haddaad muuqaalkiina aad u yaraysid waxaad samayn kartaa inaad geysid 25 marka sidaas ayaad ku samayn kartaa qaybtan kale soo aad qaybtan waa optimize video laftirkiisa in la yara speedka ama qaabka ku socdo ama jajabka inuu jajab gelin fastigaan oo kale wuxuu sameynaa marka qaabka markii oo la sameynayo kale inuu zaid maqanin oo uusan quality-giisa u lumin slow ayaa ka dhigaysa si tartiib ah inuu turjumida u sameeyo inuu waxba boobsiinin boobsi hadhowto waxa geli kara inaan jajab iyo wax galaan dhici karta marka inaad slow ka dhigtid medium kana dooranin slowga ugu fiican meelaha qaar fast waa la dooran karaa laakiin slowgaas ayaa ku fiican talahaan in la isticmaalo laana muuqaalka wax badan iska bedeli doonaan markii slowga laga dhigo meelahan kale qaybahan kale sidoo ayaga lagu dhaafaa ayagana waxba laga bedelayo chapterskan subtitleskan audio waxa laga yaabaa mar qaar inaad ka bedeshid haddii audio 160 kan uu ku anfici waayo waa badi kartaa laakiin aad waxa u fiican 128 okay ayuu ku imaanaa una fiican yahay hadda browse dheh oo waxaan raadinaynaa xagee muuqaalka dhigaynaa kii waxay soo raadinaysaa folderkaaga hore tag oo kadib waxaan sameynaynaa inaan magaca ka bedelno magacuna u bixino muuqaal yar inaan dhahno kadibna save soo dheh oo save markaa soo dhahdo qaybtaas ugu korayso start encode ay ku qoran tahay click ku sii click ma ku siisan wuxuu bilaabaa in la bedelo muuqaalkii qaybtaas stop waa dhigi kartaa laakiin sidiisa noogu socdo oo qaybtaas waxay wadaa inuu bedelmo markuu dhammeeyana waxaa kuu soo bici doona folder ayuu soo saaraa folderkaas waxaa ku jira marka muuqaalkii hore uu dhameeyey macnaha almost markuu dhameeyo folderkaas wuxuu soo saaraa marka muuqaalka hore iyo muuqaalka marka waxaan fiirinaynaa labada cabir maxaa iska bedelay cabirka hadda aan bedelnay oo bedelidda aan kusoo sameynay iyo cabirka hore maxaa farqi u dhexeeya waa kana 423 u ahaay cabir ahaan kana muxuu noqday bal aan fiirino kana waa kana wuxuu noqday 52.6 MB ayuu ku yimid haddii rabo in la sii yareeyo meeshii 23 rate frame-ka aan ka soo dhignay
RF meesha ay ku qorayda aan kasoo dhigaynay waxaa laga dhigi karaa in laga dhigo 27 26 in la gaarsiiyo markaas waxaa soo baxay inuu sii yaraa lahay marka iska xir kanna waa save gareyn kartaa save aa dhigi kartaa aniga laakiin hadda waa iska xiray RF ka aan sheegayna waa kana 23 gas meeshaan ka dhignaa badinaya daartina sii yareysid laakiin siisina ku dhaftaa ku fiican tay ahaan muuqaalka soosan u dhumin dhageysiga muuqaalkana waad ku mahadsantihiin